in kasta oo la rumaysan yahay in musharaxa xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro qaadan doono go'aamo masiiriya sida inaanu aqbalaynin sharci darro iyo sidoo kale gardarrada dhigyacab Muuse Biixi Cabdi uu ku gacan togaaleeyay sharcigii doorashooyinka. haddana waxaa jira xubno xilal ka haya xisbiga mucaaradka wadani oo musharaxa iyo sidoo kale taageerayaashiisa mayalka adagba ku cadaadinaya in la galo doorashada ururada. shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ah xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadar Xuseen Cabdi Looge oo si cad dhalinyaro wax uga weydiisay arrimaha doorashooyinka ugu jawaabay in loo diyaar garoobayo tartanka ururada siyaasadda. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye ayaa isagana la sheegay inuu diidan yahay go'aanka qadhaadh ee ay ka midaysan yihiin beeshiisa Garxajis oo ah inay Somaliland ka dhacdo doorashada madaxtooyada ama in xukunka awood shacab lagaga tuuro keligii taliyaha miirtay dhiiggii shacabka Muuse Biixi Cabdi. weli lama xaqiijin go'aanka rasmiga ah ee uu qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, hase yeeshee waxaa jirta in xogayihii warfaafinta ee xisbigaasi Maxamuud Aadan Jaamac Galaal inuu sheegay hadal u dhignaa inuu diidan yahay dagaal lagala hor yimaado xukunka Biixi. taasina waa mid mugdi gelinaysa kalsoonida lagu qabi karo Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xubno ka tirsan waaxda fulinta oo ugu horeeyo xoghaye Khadar Xuseen Cabdi. dharaaraha soo socda ayayna caddaanaysaa in gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan dhabarka u jeedin doono saaxiibkiisii abaalka badan ku lahaa sida bilaa shuruudda aana xisbiga ugu wareejiyey, ama inuu taageeri doono go'aan kasta oo ay qaataan musharaxa Cabdiraxmaan Ciro iyo taageerayaashiisa sugaya daqiiqadaha suurta la afuufayo. guud ahaanba waxaa la sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ka qaadan doono muddaynta sharci darrada ah ee ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranka, salkana ku haysa amarkii xubnaha komishanka doorashooyinka uu siiyey dhagarqabe Muuse Biixi Cabdi.